Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janka maalmaha. Waxaan idinla wadaagaynaa qiso aad u cajiib ah. Qisadan ayaa waxay dhaxmartay Imaam Maxamed bin Siiriin iyo wiil yar oo ogoon ah. Habeenada kamid ah ayaa Imaam Siiriin wuxuu soo galay masjid, markaasuu wuxuu arkay wiil yar oo salaad u taagan. Aadna moodo tiir meesha la suray, isla markaana uu ka muuqdo khushuuc. Wiilkii markii uu salaada ka baxay ayaa waxa uu yiri Imaam Siiriin, wuxuu weydiiyay waalidka dhalay. wiilkii ayaa ku yiri imaamka, waalidkayga waa uu dhintay. Imaamkii wuxuu ku yiri, raali ma ku tahay inaan kuu noqdo aabbo, mas'uuliyadana aan kafaalo qaado? Wiilkii wuxuu ku yiri, waan kuu ogolahay, balse waxaan rabaa inaad san shuruud ii oofiso. Imaamkii ayaa aad ula yaabay, markaasuu wuxuu ku yiri, maxay tahay shuruudan? Wuxuu yiri, haddii aan gaajoodo raashin ma isiinaysaa? Wuxuu ku yiri, haa, waan ku siinayaa ilaa aad ka dharagto. Wuxuu yiri, haddii aan haraado biyo ma isiinaysaa? Wuxuu ku yiri, haa, ilaa aad ka ongoyso waan ku siinayaa biyo. Wuxuu ku yiri, haddii aan dhar u baahdo ma ii iibinaysaa? Wuxuu yiri, haa, waxaan kuu iibinayaa dharka midka ugu quruxda badan. Wuxuu ku yiri, haddii aan xanuunsado caafimaad ma isiinaysaa? Imaamkii wuxuu ku yiri, haddii aad xanuunsato daawo ayaan kuu iibinayaa, balse caafimaadka Allah ayaa bixiyo. Wuxuu ku yiri, haddii aan dhinto ma isoo noolanaysaa? Wuxuu yiri imaamkii, shardigan shanaad aniga ma awoodo, maxaa yeelay nolol iyo geeri Allah ayaa gacanta ku hayo. Markaasuu wiilkii wuxuu ku yiri Imaam Siiriin, haddii aadan caafin karin marka aan xanuunsado, aadna isoo noolayn karin markii aan dhinto, iska kaydaa oo iga tag. Markaasuu wuxuu yiri imaamkii, yaan kaaga tagaa? Wuxuu yiri, waxaad iga tagtaa axadka i abuuray, ina hanuunin doona, axadka i quudiya, ina waraabiya, axadka i caafiya markii aan xanuunsado, axadka ruuxda iga qaadaya haddana igu soo celin doono. Markaasuu Imaam Siiriin wuxuu yiri, laa ilaaha illa Allah. Wuxuu tala saartay alle, allana wax waliba waa uu ka kaafiyey. Qisadan waxaan ka faa'iideynaa, mar waliba waxaad niyada ku haysaa axadka ku abuuray, isla markaana arrinkaaga gacanta ku haya. wax waliba waad helaysaa, isaga ayaana ka kaafin doono. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaal cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.